oo guurso gabadha diinta la guurso quruxa eegin nasab ha eegin dhaqaalaha eegin dhaqaalaha ku qaadan quruxna ha ku qaadan reerna ha ku qaadan hadda saddexda gabadha aad guurkaaga asaas aad uga dhigtaa waad ku lugooday ogow waxaad qaadataa buu nabigu leeyahay gabadha diinta la qaado Anas bin Ammar al-Asma'i ayaa loo yeeray aabihii baa u yeero ku yiri galabta aroos baa tahay soo meedo diyaar garooba lagu yiri waa nin dhalinyaro ah oo qurux badan markaas uu ku yiri aabo inan baa ku soo helo aroos baa tahay aqdigiina imika sameeynaa soo diyaar garoow markaa soo xidho markiiba soo xidhay qaadigii baa imado gabadhii waa la bixiyo ehelkeedii way joogaan aqdigii baa dhacay isla habeenkiiba gabadhii waa loo wareejiyay qolkii gabadha aroosadu ay ku jirtay markuu u soo galay waxay noqotay gabadh yar oo kuusan oo isaga aanan cajabin isagu laakiin waa nin dheer oo cad oo qurux badan ma sha Allah iyadii laakiin waxay noqotay tiyar oo gaaban oo yar kuusan oo isaga aanan cajabin ilaa daayiman dhalinyaradu maxay jecel yihiin ya gabadha dhalinyaradu maanta ay jecel yihiin waa gabadh uu doonayo sida isagu uu doonayo loogu abuuro markuu galay buu arkay gabadhii iyaduna way ku faraxday ninka quruxdiisa iyo suuradiisa iyo isagii laakiin ma cajabin markaa bay ku tiri hanixin bay ku tiri ha murgin khayr baa laga yaabaa ilaahay wiilkaa soo dhex mariyay ha murgun bay ku tiri ayaa ii damaano qaadaya buu nabigu yidhi ii ballan qaadi oo ila ballami oo ilaalinaya buu nabigu leeyahay labada daan dhexdooda wixii ahaaday waa carabka yar ayaa ilaalin labada lugood dhexdooda wixii ahaadayna waa farjiga labada ayaa ilaalin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam oo aniguna janno ugu ballan qaadaa ballanka nabi maxamed baa inoo qaaday ma ilaalina insha Allah dhahada majmuuciin oo dhalinyaradu badan tihiin haddii aad labada haddaad ilaalisid carabkana waxaa lagu dabraa waa dikriga ilaahay farjigaagana waxaa lagu dabraa maaragtaan ima waa soonka badso ima guur xalaala iska guursa arsaaqada ilaahay baa ku siinaya carabka maxaa lagu dabraa ya laa yazaalu lisaanuka radbun bidikri illah carabka waxaa lagu dabraa إلهي حسكيس استغفار تبدي ذكرك إلهي بدي دعوتك الشقي والدنيا بدأ هذا صلاة المسجد خير كويك فرجك نوحى الله الدبرة ويوم نبي صلى الله عليه وسلم أسقط الدنيا الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا أورك الدنيا يسوع نبي باء قدر يا يوليه أورك الدنيا نبي الله وحيري نكي كرا ينو قرصدو نبي عليه الصلاة والسلام وفق مرقو قرصدو دين تسي كالبات بوصو قاري كالبات كالان إلهي حكا بغابو نبي حديث كالكوي guurkaas farjigaagana uu ku ilaalinaya indhahaagana uu ku xafidaya haddaad karayn oo awoodii lagu guursanaya maanta aanad haysaninna waxaad ku dadaashaa maaragtaanay soonka buu nabigu yidhi badso isniintiiyo khamiistaan la soomaa ayaamulbiidkaan la soomaa soonku waa tarbiyad weeyaan yukasir ashahwa caaisha radia allahu canha waa tii odhan jirtay bidcadii ugu horeysay ummadda nebi maxamed ku dhacday nebiga dabadii waa dharaga baytiri waa dharaga oo markay dhargaani caloosha ay buuxiyaan way shishlaadaan oo jidhkooga ayaa cayila shahwadooduna way kacdaa daadna way qooqdaa oo shahwadooda ayaa kacda yaqiintooduna way daciiftaa bay tiri daraga badan shahwada ayuu kiciyaa gaajaduna shahwada way jabisaa lidaalika soonku waa cilaaj weeyaan shahwaadkaaga waxa jabinaya waa soonka weeyaan wa ilaa haddaad zawaajka karaysa inaad guursatidna guurka ilaahay baa inoo fudaydiye iska guursada oo guurso gabadha diinta la guurso teed guursan to quruxda badan leh may hayeegin فاظفر بذات الدين تربت يداك ابو النبي عليه الصلاه والسلام
quruxa eegin, nasab ha eegin, dhaqaalaha eegin, dhaqaalaha ku qaadan, quruxna ha ku qaadan, reerna ha ku qaadan. haddaad saddexdaa gabadha aad guurkaaga asaasaad uga dhigtaa waad ku lugooday ogow, waxaad qaadataa buu nebigu leeyahy gabadha diinta la qaado. Anas binu Cammaar al-Asmaci ayaa loo yeedhay, aabbihii baa u yeedhoo ku yidhi galabta caroos baa tahee soo maydho diyaargaroow baa lagu yidhi. waa nin dhallinyaro ah oo qurux badan. berigaa dhallinyaradu ma haasaaweyn, iminka innagu waa iska haasawdaa. zamanka dhallinyaradu waa balaaya adduunyada ka dilaacday. dadku berigaa way asturnaayeen oo inankuna dadkiisu waalidka unbuu ka warsugaayey, inantuna waalidadeeda unbay ka warsugaysay. markaasuu ku yidhi aabbo inan baan kuu soo hello caroos baa tahee caqdigiina iminkaan samaynaynaaye soo diyaargarow, dharkaa soo xidho. dharkiibuu soo xidhay, qaadigiibaa yimidoo gabadhii waa la bixiyo, ehelkeediina way joogaan. caqdigii baa dhacay, isla habeenkiiba gabadhii waa loo wareejiyey. qolkii gabadha carosadu ay ku jirtay markuu u soo galay waxay noqotay gabadh yaroo kuusan oo isaga aanan cajabin. isagu laakiin waa nin dheer oo cad oo qurux badan maasha allah. iyadii laakiin waxay noqotay tu yaroo gaaban oo yar kuusan oo isaga aanan cajabin. ila daa'iman dhallinyaradu maxay jecel yihiin? ya gabadhaha dhallinyaradu maanta ay jecel yihiin waa gabadh uu doonaya sida isagu uu doonayo loogu abuuro. markuu galay buu arkay gabadhii, iyaduna way ku faraxdeen ninka quruxdiisa iyo suuraddiisa iyo isagii laakiin ma cajabin. markaabay ku tidhi hanixin bay ku tidhi, ha murgin, khayr baa laga yaabaa ilaahay wiilkaa soo dhex mariyay, ha murgun bay ku tidhi. markaasuu hadalkeygii buu ku farxo, wuxuu is yidhi kollay hooyadaa iyo aabbahaa gabadhan waxay kuugu dooreen waa khayri ku ogyihiine ilaahay casa wajalla taacadda waalidkaaga kugu hoojin maaye, waalidkaaga iska adeeco, iska barakayso. habeenkii ugu horraysay u caroos galay ayaa ilaahay ducadii u aqbalo, caloosheediiba isla markiiba ilaahay ilmuu dhigay. ilmihii wuxuu noqday imaam maalik binu anas buu dhalay ninkaasi, imaam maalik binu anas. madhabkeena shaaficiga sheekheena imaam maxamed bin idriis ashaaficiyi raximahullah, macallinkii uu cilm alxadiiska iyo kutubta uu ka bartay ayuu wiilkii yaraa dhalay baa layihi. wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu ku xurtay imaam daar alhijra. imaam haddaad gabadha diinta la aad dooratid, awlaad barakaysan oo culamaaya oo ilaa qiyaamaha adigana kuu soo ducaysa, ilaa qiyaamahana cilmigooga ummaddu ay intifaacsato ayaa ilaahay kuu soo dhex marinaya. lidaalika farjigeenna waxaan ku ilaalinaynaa waa soonka iyo guurka xalaasha. carabkeennana waxaan ku ilaalinaynaa waa ilaahay dikrigiisa iyo maaragtaan iyo cibaadada iyo diinta. man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ayaa ii ka damaano qaadaya labadaa daan dhexdooda wixii ahaadoo carabka iyo labada lugood dhexdooda wixii ahaadoo farjiga ayaa labadaa ilaalin buu nebi maxamed uu leeyahay. oon aniguna marka qofka ilaahay ka xishoonaya waa inuu cawradiisa ilaaliyaa, waa inuu carabkiisa ilaaliyaa, waa inuu araggiisa ilaaliyaa, waa inuu maqalkiisa ilaaliyaa, waa inuu hadalkiisa ilaaliyaa, waa inuu caqligiisa ilaaliyaa. waman araada alaakhirata taraka ziinata addunya. qofka aakhira doonkaa buu nebigu leeyahay ziinada adduunyada uu ka tagaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. aakhira doon haddaad tahay adduunyada ziinadeeda ma jeclaanaysi. oo nabigeennaa diiday calayhi salaatu wasalaam adduunyada. inagu adduunyada waan raadinaynaa, walaakiin nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam adduunyadu nebi maxamed iyada ayaa raadinaysoo doondoonaysay. waa loo bandhigay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam. jibriil baa soo daadegay calayhi salaam. nebigu samadu ka maqlay shanqadh. yaa jibriil, shanqadhaasi waa maxay? waa malag buu yidhi, waa malag. albaab jannadu ay leedahay, albaab samadu ay leedahay maanta la furay. albaabkaa maanta ka hor lama furin buu nebigu yidhi jibriil. malag baa ka soo degay. malagaasi maanta ka hor allada ma idan buu nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa kan malag iyo salaam, waa malag ilaahay soo diray. maalinka intii ka horraysa malagaasi adduunka cagaha ma soo dhigin. albaabka samada ku yaallee maalintaa la furayna maalintaa ka hor albaabkaa lama furin. malagii baa nebiga salaamay calayhi salaatu wasalaam. markaasuu yidhi yaa muxamed, rabbigaabaa salaam kaaga sidaa. rabbilciza waxa uu ku leeyahay laba kala dooro ayaa laga yidhi, laba kala dooro.
لما متكون قاضو أنا جعلك عبدا رسولا أو ملكا رسولا لما متكلا كلا دورو ووحا كادقنا من ربنا كليه بقر با كادقنا بقر أدونك ودل لملك السيئي والنبي نمتنا ودرتاي والرسولا مسوحا كادقنا أدون إلهي ومسكينة ومالنا عنايا مالنا قضايا والنبي والرسولا لما كلا دورو النبي الهود عليه الصلاة والسلام نبي قرار كي يقعد كلي مقا وعاو نبي قوة صاحب جبريل قوة صاحب جبريل قوة نبي صداه قوة جبريل باكويري تواضع لربك يا محمد ربك ما دام كوبا إلا ماذا الرمض هي نقول اسمك سمايو ربك قولك اسكدك بلوت بمعنى تسرسها قادمة تهوسيسا قادمة لمولي boqortooyada ay nabinimada boqortooyadu ay la socoto ha qaadan weeyaan waxaad qaadataa nabinimada maaragtaan miskiinnimada kulli faaqsan labada qaadaba nabiga lagu yiri calayhi salaatu wasalaam markaasuu yiri ayuha almalak bal abdan rasuula waxaan qaatay oon doortay inaan ahaado addoon ilaahay oo ergadiisii oo rasuulkiisii ah ziinada adduunyada nabigeena baa ka tagay calayhi salaatu wasalaam adduunyada qaadan lahayn maanta adduunyada qalbigeena ku weynaatay ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام تواضع بان لغوري ربك او تواضع وصاحب جبريل عليه السلام آيات الله عجيب السيو كوري تواضع لربك مرقاب النبي يقول أدون رسوله الله يقول أدون رسوله ومحي معناه يقول وكمالنا يقول وانقضي ومالنتا قبل إلهي وويدي سنيا مالنا وحن عنا آيات هليا مالنتا وحن عنا هلنا إلهي وكم هذا رسولك يقول أقل لديس أيوه يمجري صلاة الفجر مركو قبح وقت الإشراق عائشة رضي الله عنها بالنبي قلت بجري وحلا عنا الله قلت أقل كما يالان ما يا رسول الله ما يالان مركاب النبي قل هاي حفصه تجايا أم المؤمنين وحلا عنا أقل كاغا ما تبي يالان وما حيسا ما يا رسول الله بيم ما هنا الباب ما يالو مركاب مسلم تجايا وحلا عنا ما يالان ما يالان مركاب النبي قل رجل اسكب داي وما صومنا هاي iska badaa waan soomanahay khalaas soonkiisu iska wada jiray cuntada haddii la siiyana hadday cajabisana uu cunaayey hadday cajab gelin weydana uu ka kacayo nabigu mana ceebaynayn dhalilla kama sheegayn waa hadiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam umma almu'miniin caaisha radiallahu canha waa tii lahayd bil baan noo bilatay haddana bil labaad haddana bishii saddexaad waa 60 maalmood iyo 60 habeen ayaana soo maraysay tiri aqalada nabi maxamed beri aan dab la saaray أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحل ويديي 60 مالمود 60 هبين هذه بريقة دبعا للسارين ومحاكموا تاني سنة تكون وليدين وعيتر لبدا من مدوما هلعونين أنكم بيها يتمرتا بيها يتمر بالعتكة لكم تعالوا شاكم قمان ضبا كابح بريبان نقطة أنكم خارجين وجماعات اللغين هنا تمر باسدين مركا جماعاتي وحيد هذا تمرتن وين عصليسسه وانا اللغو يا جماعات واللغوين مركا جيبوتي لحدة ودك لحدة يعني بري هوري مركاسان إلى تمرتها عنه بدها الرأي سوق جديو وحويري بل أميرو ما أنت واحد جربينا تمرتها هكو عشينه وهكو قرع عنه وهكو قبينه وبريد بان هكو قرع عنه ومالهن هاجنه markaasaan hay waayahay ma isku raacdeen ha waan isku raacnay way cuna tibirtu marka waa lagu quraacday biyo la cabaa waa lagu qadeeyay hadana biyo laga dabageeyay habeenkii markay gaadhay jamaacadii nool buu xil caloosha ululay saamiro raashinka noo kariya markaas xadiiskaasaan xasuusanay Allahu akbar laba bilood ayay tibir iyo biyo cunayeen asxaabta rasuulku أبا هريرة رضي الله عنه أهل الصوفي مساجد كالنبي ينبي جنابه كمدها مساجد كالنبي محمد كوع اعتكاف جري النبي قافك سوحي كصوبع ويلي جري أمد علمك أقول ليبو كمدها
طبق تمر النبي الله كان عليه الصلاة والسلام مركز سوريا فضالة ويا فضالة تمر تنقاضه نكي من لما تمر السيد النبي الرجع على الصفحة ورد مساجد النبي قداشي سيدنا جنايين مقالة المدينة قرين يا قرابان الكميلة هاي هدية النبي الله كان النبي وحكى السنجري صدقتنا يكرم السنجري أبا هريرة الله عليك نقضي وحوري حبت بالمركة عيان مضمود صدي حبت دي كلام حلقة قلت عيان كل حد يقول مركة النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة النبي يقول حبت حلقة محدود جلس أي شيء وعير هو يدي بهذا الكجوكتو أيضا حبتنا نقي نقود هكذا تقول ما انسى أنا كان عبار بان شيئا هنا ونلشي بقى أتكاتي بان لا نحي وشغلان بلغ عبنيا ورشغلان مجرتين درك نعمة انتين نقبضتي ايا شكري باير على شكري dadka maanta inta daragu u dhibaayo iyo inta gaajadu ay dhibayso caalamka iyo ma badan ya daragu inta u dhibaya badan dhakhtarada soodhan iyo farmasiyada weydiiya doktorada wareysta dadka doktorada u tagay iska daweeya ee xanuun ka cabanaya ma dadka fuqarada mise dadka maalqabeennada war dadka xanuunada ka cabanaya maalin walba farmasiga dawo ka iibsanayay ku sii socday ka soo guraya dawada ma dadka masaakiinta gaajoonaya wadooyinka seexdaba mise waa dadka waxay cunaan intay heleen cuntadii ka badatay balka jawaabada waa dadka dargi weeyaan waliba inaka dhulkeena weli balaayo nima soo garin waa nabad qabnaa jasiirat alcarab haddaa tagtaan iyo waddanada Oroba iyo qaaradaha adduunka la leeyahay horumarin lagu leeyahay dadkii waxaa loo sameeyo mid war baabuurta ka dhaabaco haddaad caafimaad rabtaan lugeeya haddaad caafimaad rabtaan cuntada joojiya baa lagu leeyahay cuntada yareeya reemiga iyo reemagaalka midka caafimaad badan sababta maxay tahay waa cunto yariya socod badni reemagaalka maxaa la xanuun bateen oo cunaya oo fariisanaya gacantii afkii baa kala joogsan waayey maxaa soo cuni oo soo kici beer buu cuni oo ka kici koob iyo toban kana hilib geel buu cuni labadana xaafadu tagi wixii la kariyay buu cuni hadana galabta wax cuni hadana caawi wax cuni toddoba jeer buu wax cuni war magaal baa noqday gaalada toddoba calood wax ku cuntay umada oo cunaysa ka warasada Allah تعيش حياة التعيش مع النبي محمد ومضى وحو بري نبي الصحابة يسوحوا بري حياة المجاهدة وحاول نبي الصحابة يسكت تربيدي عنتيران عنتد الله يريو إن عبادة الله بديو انت عبد الله كرديو إن الله اللون دوادو إن أدونك أويهي ما لدتك بني هذا كبدقيسا وأدونك الراحة إلى الأولي سقي ما يسكتي إلى الدويدي ويرمي أنا وحال قاتين أنا هذا عبد الرسول الدور رسول النبي قلنا قضيين وقاتوا عليه الصلاة والسلام مرقوا النبي الساقي الله بندقين وقاتين وخيار كان النبي قاتين هيا النبي صلى الله عليه وسلم ريريه السينة وهو بندقين النبي حساس يسيبه بندقين markii Madiina loo soo hijrooday dhaqaalaha islaamku uu kobcay ayaa xaasaskii nabigu waxay ku guuxeen way ku yar dhaxdooda hadal qaadeen in masaarifu nabigu sameeyo oo reer walba bil meel loo saaro ilaa waa la jihaadayay xoolaha la soo helayay xoolihii nabigu saxaabada u qaybinayay markaasay arkeen dhaqaalaha kobcaya iyo saxaabadii oo maaragtaan adduunyada ay biirayso markaasay yiraahdeen dumarkii nabigu dhexdooda ay tashadeen nabigu hadda tolo bil ha noo sameeyo nabigu Allah waxyoodo waxa lagu yiri dumarkaaga adduunya soo gashay ka hijro baa lagu yiri ka hijro markaasuu ka hijrooday nabigu sallallahu alayhi wasallam reerihiisii magaaladii Madiina waxa gaadhay war cajiib ah oo la leeyahay nabigu xaasaskiisii uu furayba Abu Bakr as-Siddiq ayaa u tagay natiisa Aisha aba nabigu ku furay ma furin waa maxay waxaan maqlay waxay tiri ma furine laakiin uu naga hijrooday nabigu oo bil hareeraheed nooma iman lagama soo ag wareegin
ما لها سنة مسكسة حدا عليه الصلاة والسلام مساجدك يا ما لها مسكبه لنا مسكسة حدا لا لا ما حضنه هذا عمر با سعودي حفص وتقول ما لغو فري ما يلا يمفرن حاسس كيس نبي عيد مفري ما يمفرن ما حدا عيش شيء هذا وعيد الديار هذا القانون ونجا هجرة النبي مركاسي أرنتي ما نبي مركاب قاعدين مركاب النبي حاسس كيس ويا ده هذا مركي سورة دقين آيات كوي على سورة الأحزاب آيات التخيير إلا السجنة كلا دوران لغيري حاسس النبي محمد وحا لليه أيكون هكا لدورتان إلهي الرسول يا آخرة ودنعا هي الدوية الزيادة ودنعا حقا الله بنا من هكا لدورتان مرقاب النبي كمل عن عائشة رضي الله عنها عائشة واتو النبي وحاسس كيسوه جعلا مرقاب النبي وعائشة ويعني عائشة قال يقول صفريس آيات كانت بشيء كل صوت دقي آيات كاسنا إنك نقص على إنك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن القاس اللي يقول واحد كلا دورنا إسا إلهي يا الرسول كيسا يا دارت آخرة جنة أودنعا يا الدنيا يا الزينة أودنعا على مدى كلا دورو هذا الدنيا الزينة هذا دورتنا وكفر يا سفي عنا وكفر يا حقوق واحد يقول هاي وكسين يا الدنيا هذا والغفر يا مركز مركابو النبي كويري ولما إليه أربعتين وأن قال شد أبو دقيقة أباها أبو بكر الصديق ويدا أتقو أرجاس وهار العرس ويانه كنيجا دعاء كأسكت هذا إنه حقوق بودنه أرد أباها كتلا قريب النبي كويري مرقابي تري يا رسول الله ما إلهي رسول كيسا يا دارت آخره أيان كلت الشنا يا بيت أباهي حتى قوان كيغا قاتي وأنا كوش يا قوان كيغا عندها يجي شيء إلهي رسول كيسي آخره أيان قاتي ما تيتي كذب بيسنا الدنيا دم بقوان القاضي ما يبي كتري مركب النبي صلى الله عليه وسلم حاسس كيسيبه مد بقتجي وقبندجي سيدي السجا ملك وقبندجي أيو النبي حاسس كيسيبه وقبندجي مد والبواحي تري إلهي رسول كيسي آخرنا أيام قادني إلهي رسول كيسي آخرنا أيام قادني لأنه ما نتا أنت كذب بيسي نبي محمد عليه الصلاة والسلام هدو حننا وإلا عنيين هدو قاجودنا وإلا قاجولين هدو قاجك وأكسحنا وإسكاك سحنين هدو وقعنت قلينا قعنت وإلا قلينا والنبي أود روح إلى هيكلي هذا النبي يقول إله نجح ذهب كدك إله الذهب كوا كدك كرا قعنتي صابر كلهي بشير بن عقرب رضي الله عنه صحابي قال له رنجري وسقوا يربو كشك في صحيح البخاري أباهي غزوة بوضع الجهاد مجاهدين تبو راعي بويري مركزان مقالة المدينة دولت يجب أن يستاقي مركز عيدك وإيش صور نقدين أباهي من عيدك كدح ويقول مركز النبي عليه الصلاة والسلام مركز أن سرتك يا رسول الله أبا هيمي وكي عيدك الرعاية محاك الرابي مركز النبي يجستي مركز الحق كلي استاذون كوري يا رسول الله أبا هي عيدك ولا السعوداء محاك الرابي مركز أنا النبي نيسا وإلا أنتوا أيكاكوا بنايسو مركز أنا قرت أبا هي لنو شهيدي مركز النبي كور إيقاذون وحيقويري يا بشير ما أنت لقى بالأباميات رألك وهي إنه نبي محمد يكون نقضى أباها أو كله عايشنا يكون نقضى هو مركاسان رضيت يا رسول الله رالي ما نقدر رالي مركاسان النبي الله عرب جبق الله إلهي إيويدي عرب كان جبق هذا الإلهي ويقال قاضو مركاب النبي يقول صوصار عرب كذا وأقول في النبي صلى الله عليه وسلم عرب جبق هذه مالتي ما أقول دم بيسي ما دحيو النبي يقول قعنت وصاري إلا أظن بوها موقتهي صحابي قاسي سيقا كشيكين دونا سيقاش الجربو قال داريسو تمحو نبع عداري قال ليلي ولكن مش النبي يقول قعنت وصاري برمضو من نقطة بلرتني ومدوجودي نبي الكرامة إلهي وسيء يجيك معجزات إلهي وكذا هني وكره النبي يقولون له إله وريره يبقى جوني ما يعني الدين هذا كشف ياي بقى حد الذهب يقدم وكره لكن النبي محمد وعلى الكلا دوره الدنيا ودنع يمارك تانا الدين بقرطوية هي رسالة ودنع هي أبدوننا النقطة مسكينة والنبي كلا دوره لأن النبي يقول قاتلين النقطة أبدون رسول النقطة طريقة أبو نبي يقول لك يا نوجه حي مركز الدنيا
لا كشق يسلق ملأ لكن هجعلان بالغولية أدوية إنه قدرت كيلو إنه يكشق يستايو ويكون مشغول شيء إنه أدوية ما هيصل لكن أدوية ويجعشها وحانا الحين إنها تجعل تكورا سوى لما صحابة رسولك كوي أدوية هايستي أيا جعلان ويا أدوية كوي أدوية هايستي ما يجعلان داعب إلى أن يستعمال الأدوية دودا نبا ويمدي أبو نبا ويمدي أنصاريا أنصاريا ويمدي قصدنا واحد قلت على كتاب إمام أحمد مسند كيس beertayda geed timira oo beertaada ku yaala u baahan inaan ku tallaale beertiisa mina fiicnay ee geed timira walaalisi markaa ku siin maayo geed igu bedel geed miraha beertayda ku yaala kuugu bedeli maayo guri iska socdo ninkii baa nabiga u sheegay sallallahu alayhi wasallam walaalkay baan halkeedo timira weydiisto uu isiini waaye nabi allah adigu ii weydii markaa nabigu ninkii u yeedhay reer Madiina wuxuu nabiga ku yiri warya geed timir oo beertaada ku yaala oo xagga beerta hebel xiga markaa uu nabigu risi markaa uu rasuulullaahi ku siin maayo markaa uu nabigu ku yiri bi'nihi binakhlatin fil janna geed timir oo jannada ku yaala beer timir oo jannada ku taala hadana ku bedelo markaa uu ku bedelan maayo uska amsa markaa nabigu sallallahu alayhi wasallam abu dahdah radiyallahu anhu oo meesha fadhiyay oo arrinka la socdo maqlaayay ayaa ninkii iyo u tago wuxuu ku yiri waniyo geed timir oo beertaada ku yaala u baahanahay beertayda timirta intay la eg tahay oo dhan ma igaga wada bedelo geedkaas inta beerteedu ay tahay oo dhan geed timir oo beertaada ku yaala ma ku bedelan war ma adigu ciyaaraysaa wallahi inuu kugu ciyaaray ee ma igu bedeli hawa kugu bedeli kala beertayda la wareeg geed timir oo beertaada ku yaala oo xagga walaalkay beertiisa xiga iigu bedel waa hagaaga qaado adiguna kala beertiisa soo wareeg abu dahdah uu soo socday islaantiisii iyo ubadkiisii oo beerta dhex jooga oo waliba aqal ku deganaano uga dhisan yahay ayuu u qeeyo wuxuu ku yiri ummu dahdahay beertan ilaahay baan xaqiisa u xawlanay aakhiradan u xawlanay ka soo dhaxbo ciyaalka ka soo saar markaa bay ku tiriyeen xawaalada beerta aakhira aad loogu xawishay wallahi waad ka macaashay ku tiri dukaankaaga haddaad tiraahdo islaantaada ku tiraahdo dukaankii yaray masaariifta aan inooga qaadayo baan masjidka ku wareejiyey bay kaa yeelaysaa tolkaada kugu yeedhay koran u waashay xidhxidha dadku bariga rag iyo haween isku aragti bay haayeen dad meel kaliya u jeeda bay haayeen dadkaas ma kala jeedin ma kala socon way wada socdeen halka nabi maxamed uu jeeday saxaabadu u jeedeen halka saxaabigu u jeedo ayay islaantii ilmuhuna u jeedeen markaa bay tiri waad ka macaashtay bay ku tiri maanta tijaarada ilaahay adiga idin dhex martay waad ka macaashtay markaas abu dahdah nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah geedkii timirta ahaa ee hebel aad u doonaysay waan keenee geedkii timirtu ninkii uu iska diiday ee jannada ku yaallay in ballanqaad markaa buu nabigu ku yidhi kam min cidqin raddaah لأبي الدحداح في الجنة إمسا إلهي أدياريي قيدة تمرة وإنتي مريهي بسلامين أي نقدين بوشامة أي نقدين وجنة كويا الله أي إلهي أبو الدحداح أدياريي ورسول كويا قيدة تمرة وجنة كويا الله نيك الله بلن قادي مدعي كرتا يساقوا نارين وقالوا يا ما يساقوا جنة وقالوا وإنك جيت تمر الله بلن قادي بمعنى يساقوا أهل الجنة مرقى صحابته وحي هايين إن درقلته هايين ورمحي هايين إن درقلت إنك إن درقلت محاول تقانا كوة هذا الله شغية إن درقلت يكون صلاة تكري السياسة كهلا السياسة صلاة تارك الصلاة مقاعد فريسان هبين مالين وحا لو دربو كشاكين وحيدت في ساعد هو المؤمن كان الصومالة تقانا خبير درقرة
indheergarad waa ninka naftiisa yaqaana waxa naftaada u wanaagsan waa inaad garataa waxa rabbiga u wanaagsan waa inaad garataa waxa reerkaaga u wanaagsan waa inaad garataa waxa dadkaaga u wanaagsan waa inaad garataa waxa dalkaaga u wanaagsan waa inaad garataa hantida dal uu leeyahay hantida ugu wanaagsan dal uu leeyahay waa dadkiisa indheergaradku waa ninka dadkiisa wanaajiyo oo dadkiisa ka shaqeeya indheergarad waa ninka dadka islaaxooga ka shaqeeya waa ninka diinta ummadda baraya waa macallinka qur-aanka dadka baraya waa daaciga ummadda dhex socda waa caalimka rabbaaniga ee masjidka dhex fadhiya ee ummadda ilaahay ku xidhaya waa daaciga mutajawilka ee jawlaynaya ee tuulo miiga intuu reereer u dul tago dadka ilaahay ku xidhaya kaasaa indheergarada kaasaa mustaqbalka waddankiisa iyo mustaqbalka mujtamaciisa dhisaayo ka shaqaynaya الله يمد بداف صلاة العشاء بالله قلي مساجدنا نوسكون له هو هذا كنا وان مغليني صلاتنا والله قلي إنه دين تي دعوة يا خير كشقيا وديار هذا المرتدي إن شاء الله هذا إن النفس هذا إصلاح حساب إن أرجعت وانيك النفتي سواء يكون إصلاح حساب يقنا إن أرجعته هو حويان وانيك غير كيس قويس كيس الدين تي أخلاق وناسب تربية إن أرجعت هو حويان وانيك مجتمعي سددك دل كيس كنول إله يا رسول كيس كسو حرايا دتك حاجات جنايا كاسا إن أرجعته صحابة مركا إن أرجعت بهايا آخرة يكون حسابتنا وين أديوده ما بعركين أديوده وحيوركين إني تهاي مارك تاني كمل جاد مال آخرة دارت هذا اللي قصيد السنة يكون وركين مركا إن شاء الله تعالى كو دين تودا قبصدا دين تودا كشقايا دعوة يا خيرك ومدى وبيرا نفته ذا الصلاحية الله ينقدمه إن شاء الله صديار مني الله ينوافعه هذه اللي نقدر البديت إن الوقت يدغالكم بحننا صديار مني وإذا استنفرتم فانفروا نبي إن يري هذه اللي نقدر به إلى دين توضح هذا بنبي ودين توضح مركز صديار إن شاء الله هبين دمنا جمعة ومركزك كلك ديني ده مركزك كجرا كسوق قبل إن شاء الله دبينا الله هداف دبينا والدين تنا الله هداف دين الله إنه معاني مركنا الله شافيه موتاتنا الله ونحرست أمن إيمانك الله إنه زياديه dad badan oo walaalaheena ducadoon ayaa jiray qof kale qof ii qurbeysa qurbada Allah ka qaado dhalinyarada guurdoonkaana guur xalaal Allah siiyo gabdhaha guurdoonkaana wiilal wanaagsan oo diin iyo tabaacad wanaagsan Allah ku hagaajiyo maciishadan ciriiriga Allah inooga saaro muslimiinta qulubtoodana Allah mideeyo muwaafaqeen midnimana Allah ina siiyo shaqaale diinada la aqbal Allah inaga dhigo waalidiinteena wixii dhintay xaq nagu Allah u naxariisto innagana Allah inooga daba naxariisto sallallahu ala nabiyina Muhammad